jooga maalintii aan mulkiyay gul macaan badan misna kuma gamcine koonfur baan kula mataanoobay niman baa shuruud lii mulkiyay sidigti maadhiin maandeeq haruubka u cushay oo naalay kaligood. munaasabadan ayaa ahayd munaasabad kooban oo lagu xusayay xuska sanad guurada 26 Juun oo ah xilligii Soomaaliland xorriyadda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wafdi wasiirada uu hogaaminayo maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco xubnaha hay'adaha dawladda ee gobolka Togdheer odayaal iyo marti sharaf kale oo tiro badan. ugu horeen munaasabadan waxaa ka hadlay odayaashii waayihii taariikhdii 26 Juun goobjooga uga ahaa. lixdankii markaynu calanka qaadanay yaradii shaqaynaysay baan ahaa qodnimada ka goosadka Soomaaliland aynu goosanay cadowgii ka goosanay hayna reebin waa inay istidaahdaan oo taa hoos u eegtaan yacni wixii la soo maray iyo cadowgii inoo geystay. waxaan aad iyo aad anigu ugu soo dhaweynayaa ummadda Soomaaliland war maanta dad badan boolna dad dalkoodii haystayna odayaashu kuwii haru dhiibayna maaha kuwa maanta dhiibayaana noqon maaya insha Allah bismillaahi kariim. runtii waxa iigu weyn waxa weeye qalabkeeni irada badnaamayno usulayna waxaan leeyahay jidhabani adag jidaan jid dheer baa loo maro mataanaha wada jirka Juuniyame Somaliland markii uu isku garaaceeno ninkii yiri saamigaas naguma filana way ignore gareeyeen ninkii wax liita qaadanayeen way qaateen. aynu isku duubnaano guul iyo gobonnimo taasaynu ku gaaraynaa maantana halkaynu taaganahay xaqadu waxa weeye waa la og yahay garnaqsigeena caalamka dhan ku gaari waxaan rabaa halka aan ka sii wadno dawladana ma jaraha inoo qabato waxa yaryar ee soo baxay madowgaan aan inaga ilaaliyo. ugu dambeyn iyaguna waxa soo afmeeray munaasabadan wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirada wasaaradaha arrimaha bulshada iyo sidoo kale waxbarashada. halkan waxaan joognaa waa gurigii madaxtooyada degmada Burco gobolka Togdheer waxaynu isugu nili xafladan 60 guurada xornimadii qaranka Soomaaliland 1960 laga qaatay gumaysigii la oran jiray Ingiriiska wixii aan siyaasad ahayn ummaddu ma kala xidhna awalba may kala xidhnay konton kun oo inan oo aan curan ayaa tan nagaga maqan inaan si sahla oo hawl yar ay iskaga sibirnayna hadday tii soo noqoto maantana halkiina ka galaaban diyaaro xornimadii aynu qaadanay ee ceelkayna kaga dhacday aynu la soo noqonay maanta inaguna aynu soo dejirsanay mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyaynayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan sanadkiisa ilaahay inuu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo inagoo jecel ama aqoonteenu ay gaarsiisnay meesha maanta ay dunidu marayso ama Yurub ay marayso oo dunida hogaamisa ayaynu waxaynu joognay 1960kii waxaynu jeclaysanay inaynu abuurno Soomaali mida oo awood leh oo la isu keeno oo inta kalena aynu isla baadi doono nasiib daro waxaynu u dhiibanay dhulwaa intii aynu inta kale inagu ku maqnay ayuu afka jaray oo candhada jaray oo agaha jaray dabadeedna iyadoo fadhida ayaynu ku soo noqonnay inaynu mar labaad hantinay wixii aynu xaq u lahayn oo ah calanka tawxiidku ku xadhan yahay ee korkeena suran reer Soomaaliland ogaadaan in qaran jira oo 60kii dhashay oo ka Soomaaliya ka hor dhashay aan hayn oo marka wada hadalkani maanta laga hadlayna ay muujinayso in laba dal oo jira taas keentay maanta in aad loo xoojiyo dhiimay waxyaabaha dadku si khaldan u fahamsay maanta halka la isku yimiday ka dhawaaqay in qarannimada Soomaaliland dib loo soo noqdo qiimaha ay lahayd waxa wahay ummadii reer Soomaaliland ku midowday xuduudii Ingiriisku mideeyay halkaas ku timiday in dhibaatadii dhacday halkaas ka dhigeen nabad maanta kaga horeyno walaaliheen ka horeyno halka lagu yaqleelay. guud ahaan deegaanada Soomaaliland ayaa waxaa si toos ah loogu xusayaa xuska munaasabada 26 Juun oo ah xilligii Soomaaliland ka qaadatay gumeystigii Ingiriiska xorriyadooda. Cabdiqani Baafo, RTN, magaalada Burco.